wuxuu ahaa halgan wadareed ay hogaaminayeen xisbiyadii ay ka mid ka ahaayeen SNL, USP iyo SYL. hankii iyo halgankii xariirta ahaa guushii la gaaray 26 Juun 57 sano kadib markii aan dib u milicsano waxa kaloo iyadana nasiib darro ah in ehel Soomaali ehel wada ah oo wada dhashay ay qaar yar oo kooban oo doonaya inay hayndaab lagu kala hayaan. walaalayaal, haddaba xuska 26 Juun waxaa walaalaheenna gobollada waqooyi dhalinyaro iyo waayeen rag iyo dumarba aan ugu baaqayaa inay tahay mas'uuliyad inoo wada yaalla inaan dib u hanano qarannimadii iyo midnimadii calanka innaga inoo gaara kii SNL iyo kii NUF iyo kii USP iyo mid aynu wax laga dabla muujiyo hadday taas dhici lahayd maanta waa inaan kala baxnay niman kala oo waxaan oranaa calankaas uu ka jira oo innaga calmaad soo samaysanay horta calankoodii la noqday kii aanu samaynay Soomaaliland ee heshiis baa inoo kaas aaran ilaahay ma soo marka leeyahay calankii buluuga ahaa iyo calankii ay qoladan xamar xalay ku basaareen ay lahaayeen 26 baan ku xusnaa xamar laga saarayay wardeesh qab marina Korea afar inta ka caawinay disay xukman aan darsadeen bahaleedii waxa oo taanigi dawladda hoose ku qaateen waxa la mid ah calaamada labada shabeel midna shaqo weyn aan lahayn maxay ugu yeeloway waa waxyaalaha nagu caay jireen oo jireen Soomaaliland waa waray farateen saddex afar ay jireen oo walaalkii wallahi fuudaa kan gacaylkii iyo isu diibidii shanta Soomaaliland doonayaan isku dhiibay ee aan ku leeyahay waxa ma doonay Soomaaliland shanta midowdo ee ka hadlaysan inuu ku ururo ayaa markaan xamar tagay caay u noqotay kolkaas caaydi laga gaari waayay markaas gacan ay qaaday markaas diyaaradda u garaacay markaas doonayay inuu yaasaan maaha calankiisa waa loo kala leeyahay ku qorayahay calanka waa macnaheedna kan macnaha uu fadhiyo dadka sheegay xagga hoose waa dhig inta sheegtay jimcadu ruux xataa kuntum qof oo sibla ku dhintay ana cilmada iska dhaafinta ciidan ku dhintay iska dhaafinta qaxday 800 sano wadanay hamsi ay lahayd way ku dhamaatay way gacan ka sheegay waa Soomaaliland waxa kale uu sheegay kii ka horeeyay soo SN waa halka kii daraawishta Soomaaliland way ku dhamaatay waa halkii ka soo bilaabay waxa ku xigay kii Sheekh Bashiir iyo hadda waxa ku xigay kii SN USP ala qaybta casharka ka sheegay dhinaca dhexe waxay tilmaamaysaa nabadii loo soo maray dagaalkii ka bacay waxay sheegaysaa dhinsi qarannimada ee cudurka soo qayb gashay waxay sheegaysaa walaalnimadii ay walaaloobeen bari ilaa galbeed ummadda Soomaaliland ka sare ee greenkii waa kaynu ka taaganahay oo horumarkii waa tacabkii waa barwaaqadii